maanta oo caan aan naqday maa laysoo qarxina soomaaley mi weydiiseen markaad iska kaycay haysiin muuqaalkan sharmuutanimada dhilaysiga gafka ah macsida ah mar hore u ahay kula wacan daawadayaal meelka joogtaan ku soo dhawaada channelkana Qab TV aanu ku bilownay salaad shanta ayaa markii ugu horeysay isagoo magaalada Garowe ku sugan ee maamulka Puntland waxa uu ka soo hadlay muuqaal markaasi baryahanba baraha bulshada la dhaxwaday isla mar ahaantaana hooyo Soomaaliyeed oo hore aan u sheegtay in muuqaal laga hayay lagu soo daayay baraha bulshada markii ay caan noqotay ayadoona markaasi ku andacootay sababta iminka loo soo bandhigay muuqaalkaasi in uu ahaa kaliya markii ay caan noqotay caanimadana loo diiday salaad shanta oo arinta ka hadlayay ayaa waxa uu yiri oona kamid ah hadalladii sida حرم iyo maxram la'aan ma kala eegaano ciday arkaani dab saaraan si kastaba ha ahaatee salaad shanta oo inta badan ay bulshada baraha bulshada ku xiran ay ugu barteen in marba uu qof ka laalaado ayaa waxa uu ku tilmaamay in hooyadaani ay meel marinayso dastuurka ama banaysiga sida uu hadalka u dhigay sharmuutanimada waa hadalka sidoo uu dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in gabdho yar yar oo baraha bulshada ku jiraan ay doonayso inay fasaadiso maxaa ku kalifay salaad shanta oo sheeganaya culumo in xilligaani uu ku yiraahdo maama Soomaaliyeed meeshii uu dhihi lahaa Allah soo hanuuniyo inuu sida ku yiraahdo hadalka uu bayaan u dhigo sidoo kale waxa uu salaad shanta ka sii laalaadsaday ninka lagu magacaabo Cabduqaadir Boos oo sheegay in habraha sidoo kale asagana uu baadiyeeyo una ka macsiisto salaad shanta ayaa bulshada Soomaaliyeed inta badan waxa ay ku barteen in masaajida markiisi hore uu ka soo waramo ayadoo masaajidu ay leeyihiin salaada dabadeedna uu mikrofon intuu soo dhigo uu iska dhigi jiray dadka marka sheekh wax wacdinaya dad yo aad u fara badan balse taasi fashilkeeda ay ka daba tagtay gabar la oran jiray Farxiyo Zoona shigastaba haatee salaad shanta ayaa bariyihii dambe waxa ku kacsanaa reer Muqdisho asagoona u baxsaday dhanka iyo maamulka Puntland oo bariyahan dambe uu ku sugnaa salaad shanta waa nin aad u yaqaanaan dhalinta reer Muqdisho waxaana ku tilmaameen markiisii hore inuu ahaa ciyaal xashiish ama ciyaalka loo yaqaano darbi chief balse markii uu dambeysay uu la baxay garka oo ugu dambeena uu noqday nin markaasi baraha bulshada si xirfadeysan ku soo gala maadaama baraha bulshada boosaska faraha badan ee laga haysto haday ahaan lahayd cadaaladda iyo madaxweynaha maamulka iyo sidoo kale meelo badan maadaama laga cariiriyay ayaa waxa uu xuubsiibtay inuu iska dhigo sheeqad baraha bulshada si kastaba haddee salaad shanta ayaa iminka u muuqanaya in maamadaasi uu ka laalaadsado isla markaana uu doonayo in markaa shacbiyad uu ku helo maadaama madooyinkii dambe muuqaalada uu soo dhigi jiray ama dadku uu ka laalaadsan jiray uu gabi ahaanba gaabiyay arrintaasi ayaa waxaa lagu sameeyay in hanjabaadi fara badan ay kaga timid dhanka iyo dadyo aad u fara badan oo ku sugan dibadda dalka iyo sidoo kale gudaha asagoona amnigiisa la baqay ayaa waxa uu iminka ku sugan yahay magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland daawada muuqaalkan haduu ku soo gaaro share garee like garee commentiga aadan waa inoo muhiim qaybta hoose ee faalada ayaad noogu reebi kartaa halkan waa Qab TV